Cudurka Koronaha oo noqday mixnad iyo caqabad hortaagan horumarada iyo hore u socoshada caalamka ayaa waxa uu maalinba maalinta ka dambaysa dadka dunida ku qasbaya soo ictiraaqida ee la imaanshaha qaab cusub oo loola noolaado. Markaana khubaro ka tirsan qaybta handasada kiimikooyinka iyo bay'ada Department of Chemical and Environmental Engineering ee jaamacadda Yale ayaa ku guuleystay in ay soo saaraan qalab cusub oo awood u leh in uu ogaado in qofku uu la kulmay jeermis dhaliyaha cudurka Koronaha ee loo yaqaano SARS-CoV-2. qalabkani oo uu qofku si sahlan u xiran karo oo aanan ahayn mid culus, isla mar ahaantaana haddii uu qofku yahay qof rag uu shaatigiisa ku xiran karo, haddii ay gabar ama qof dumar tahayna ay xijaabkeeda ku xiran karto, ayaa markiisii hore loo naqshadeeyay in uu cabiro wasakhda hawada ama waxa loo yaqaano air pollution. Balse markii uu bilowday cudurka safmarka ah ee Koronaha ama COVID-19 ayay khubaradu bilaabeen dadaallo loogu jihaynayo qalabkani in uu karti u yeesho ogaanshiyaha ama garashada fayruska Koronaha. Inkastoo ay weli socoto horumarinta lagu sameynayo qalabkan lagu magacaabo Fresh Air Clip, ayaa haddana tijaabooyin horudhac ah oo la sameeyay waxa ay muujinayaan waxtarkiisa. 62 xabo oo ka mid ah qalabkan oo loo qaybiyay dadka halista ugu jira cudurkan in ay la kulmaan, sida dadka ka shaqeeya cisbitaalada, dadka hoy-la'aanta ay hayso ama darbi-jiifka ah, iyo dadka ka shaqeeya ama aadka u fariista maqaayadaha, ayaa markii baaritaan lagu sameeyay waxaa 5 ka mid ah qalabkani laga helay fayruska Koronaha, taasi oo muujinaysa heerka awoodiisu ay la eg tahay in uu kala saaro dadka cudurkani la kulmaya iyo dadka aanan la kulmin. qalabkani ayaa wuxuu sitaa canjalad yar oo dhexdiisa ku samaysan, taasi oo awood u leh in ay ururiso waxyaalaha yaryar oo ugu horeeya jeermis dhaliyaha cudurka Koronaha keena, iyada oo wax ka yar hal maalin lagu ogaan karo natiijada lana adeegsanayo mashiinka PCR. Waa tijaabo cusub oo wanaagsan, isla mar ahaantaana waxtar u leh dadka si loola noolaado xaaladan caafimaad darri ee dunida oo dhan wajahayso, maadaama dadku aysan awood u lahayn in ay ogaadaan inay cudurka la kulmeen iyo in kale. Waxa uu qalabkan u sahlayaa inuu qofku siiyo alar amaba digniin uu u sheegayo qofka u dhow ee qufacaya ama ay calaamadaha ka soo muuqdeen, iyadoo taasi ay sahlayso in dadku ay shaqadooda aadaan si maalinle ah, caafimaadkoodana ay uga warhayaan. Waxaa socdo isku dayo lagu doonayo in qalabkani uu noqdo mid dadka dhan ay wada awoodaan, qiimihiisuna uu hooseeyo, balse lama oga in uu dunida wada gaari doono iyo inuu ku ekaan doono dalka lagu farsameeyo ee Mareykanka.